kulanti wanaagsan daawadayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta qodobada aad ku daawan doontaana waxa kamida xiisad ka taagan doorashooyinka Jubbaland iyadoo qaar ka tirsan musharaxiintana ay ku hanjabeen in ay dhinacooda magacaabi doonaan guddi cusub oo doorasho hay'adda laanqeyrta cas ee Liibiya oo sheegtay in ay badda ka soo saartay 66 qof oo meeyda kadib markii ay qariqantay doonisiday muhaajiriin oo Yurub ku socotay maxkamadda sare ee Mareykankana waxa ay madaxweyne Trump u ogolaatay in uu lacag uu militarigu leeyahay ku dhiso darbiga laga taagayo xadka u dhaxeeya Mexico iyo Mareykanka wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale daawan doontaan aan ku bilowna ee xiisad ayaa ka taagan doorashada dhinaca madaxtinimada ah ee dhawaantan la filayo in ay ka dhacdo maamul goboleedka Jubbaland qaar ka tirsan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Jubbaland ayaa ku eedeeyay guddiga doorashada maamulkaasi in ay musuqmaasuqeen liiska odayaasha soo xulaya baarlamaanka dooran doona madaxweynaha waxaanay ku goodiyeen inay dhinacooda soo dhisi doonaan guddi doorasho warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed qaar ka mid ah musharaxiintan oo ku bohoobay madal ay ugu magac dareen madasha badbaadinta Jubbaland ayaa ku goodiyay inay dhawaan ku dhawaaqi doonaan guddi doorasho oo aanan ahayn midka hadda shaqeynaya isla markaana ay magaalada Kismaayo ku qaban doonaan doorasho ay ku sheegeen mid madax bannaan oo xor ah waxaana sidaasi VOA u sheegay xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa war ay arbacadii soo saartay waxa ay waxba kama jiraan ay ku tilmaantay liiska odayaal dhaqameed ee dhawaan soo saareen guddiga doorashada Jubbaland kuwaasoo soo xuli doona xildhibaanada cusub ee maamulka Jubbaland uu yeelanayo hase yeeshee maamulka Jubbaland ayaa isaguna hakiyay xiriirkii wada shaqaynta ee kala dhaxaysay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana Jubbaland ay sheegtay in madaxda dowladda Soomaaliya iyo shaqaalaha dowladduba aysan imaan karin magaalada Kismaayo laga bilaabo 26 bishan halka taas bedelkeedna ay Jubbaland madaxdeeda iyo shaqaalaheeda ay ka mamnuucday inay u safraan magaalada caasimadda ee Muqdisho xiisadan siyaasadeed ee ka dhalatay arrimaha doorashada Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka abuurtay xaalad amni darro iyo walwal soo wajahay dadka magaalada waxaana dadku magaaladu ay sheegayaan in hoos u dhac xoogan uu ku yimid ganacsigii magaalada kadib markii ay cabsi soo wajahday ganacsatadii alaabaha keeni jiray magaalada ciidamada ammaanka ayaa aad u adkeeyay ammaanka magaalada oo la filayo in dhawaan ay martigeliso doorashadii ugu xamaasadda badneed ee abid ka dhacda magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi hay'adda laanqeyrta cas ee dalka Liibiya ayaa sheegtay in ay meydka 66 qof badda ka soo saartay kuwaasoo doonidii siday oo ku wajahneyd dhinaca qaaradda Yurub ay badda kula qariqantay 150 qof ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen iyadoo 150 qof oo kalena la soo badbaadiyay dibna loogu celiyay wadanka Liibiya doonidan ayaa ku qariqantay xeebta Comas oo dhinaca bari ka xigta magaalada Tripoli ee caasimadda u ah wadankaasi Liibiya sharikadda Hyundai ee baabuurta farsamaysa ayaa magaalada Hargeysa waxa ay ka furatay xarun ay ku iibin doonto gaadiidka ay soo saarto waxaa Hargeysa wakiil uga noqday sharikadda Dahabshiil waxaanu maamulka sharikadaasi sheegay in ay shaqooyin badan arintan u abuuri doonto dhalinyarada ku nool Somaliland warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle maalgashiga muwaadiniinta iyo shirkadaha shisheeye ay iska kaashanayaan ayaa ku soo badanaya baryahan dambe magaalooyinka Somaliland toddobaadkan waxaa magaalada Hargeysa laga furay xarun cusub oo ay leedahay shirkadda Hyundai ee gaadiidka taasi oo ay wakiil ka tahay shirkadda Dahabshiil Motors iyadoo munaasabadaasina lagu qabtay magaalada Hargeysa waxa buuxdaafiyay suuqyadeena baabuur meel laga marlaayay marka lagu soo dhiirado baabuurka la dulkeena waa hawl aan yarayn runtii waxaan ku sameeynay research aad u badan halka baabuurtan u geli karto waxaan noo muuqday inay tahay meel gala marka Soomaaliga soo yar ururiyo waayo baabuurta aynu isticmaalaa waa 10 jirka u yar marka 20-30 sano waa baabuur laga soo laastay oo saaman gaba duruufta aynu ku kaliifaysan inaynu isticmaalo laakiin baabuur scrap loogu tala galay waqtigan runtii lagu soo dhaafay laakiin waxay u baahan tahay marba heer baa la joogaa in la gaadho waqti laga baxo dhibaatadan waxaanu aragnay fursadaas inay banaan tahay shirkadda Dahabshiil wuu ku dhiirraday Dahabshiil runtii oo wuxuu geliyay maalgelin aad u ballaaran oo dhowr milyan ku baxday
baabuurtan oo faa'iidadooda koowaad ay noqonayso inay badbaadada qayb ka qaadato hadday noqon lahayd TBA hadday noqon lahayd tii qofka wax yeelaysay waa baabuur laga soo shaqeeyey borigooda ama haykalkooda laga soo shaqeeyey la soo adkeeyey tallaabo kasta oo dhinaca horumarka oo soo korodha waxaa ka faa'iidaysta qoysas iyo dad kala duwan oo iyagu markaasi shaqaale ka noqda shaqa abuurku waxa weeye number 1 ama waa muhiimadda koowaad in dad badan ka faa'iidaystaan oo hadday noqon lahayd cilmi ka barasho hadday noqon lahayd shaqo inay ka helaan iminka ilaa dhowr iyo 20 qof baa ka shaqeeya waanu sii siyaadin doonaa magaalooyinka waaweyn ee leh awoodda inay iska baabuurta noocan oo kale iibsadaan waanu gaarsiin doonaa dhulka Soomaalidu joogto oo dhan waxaan rabnaa inaan gaarsiino waxaan is leeyahay sidaan kuu sheegay mar kale waa baabuur anfici doonta qofka marka uu muddo wato arki doono faa'iidada rudii uu ka helay rugta ganacsiga ee Somaliland waxay door weyn ku leedahay inay isku xidhmaan ama xidhiidh dhex maro shirkadaha caalamiga ah iyo kuwa muwaadiniinta muhiimadda uu maalgashigu u leeyahay Somaliland runtii waa muraayadda ama albaabka ay ka soo galayaan caalamku marka uu maalgashigu helo shuruucdii dalka dowladnimadii dalka ayaa uu ku soo dhiiranayaa oo uu samaynayaa maalgashi marka uu ka sii horreysiiyo muwaadinku uu maalgashado ninka muwaadinka markaa waddanka la maalgelinayo u dhashay sida Somaliland oo kale hadeerto companiga Dahabshiil Motors uu maalgashaday ayaa ay kuwa kale ku soo dhiiranayaan waxa halkaa ka abuurmaya dhaqaalihii dalka oo kor u kaca dhalinyaradii oo shaqo ka hesha Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa ugu yaraan 12 qof ayaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen duqeymo dhinaca cirka ah oo ay diyaaradaha dalka Suuriya ka geysteen deegaano ku yaala waqooyi galbeed ee dalkaasi Suuriya duqeyntan ayaa qayb ka ah weeraro dhinaca cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa dawladda Bashar al-Assad ka wadeen tan iyo dhamaadkii bishii Abriil gobolka Idlib iyo qaybo kamid ah gobolada dariska la sida Xalab, Xamaah iyo waliba Latakia deegaanadaasi ayaa waxaa maamulo kooxda mitidiinta ee Xayaat Tahriir al-Sham oo ah dagaalyahano xiriir dawla leh ururka al-Qaacida kooxda xuquuqda aadanaha u dooda ee fadhigeedu uu yahay dalka Britain arrimaha Suuriyana dusha kala socota ayaa sheegtay in 2 caruur ah ay ku jireen 11 qof oo rayid ah oo lagu dilay duqeyn sabtidii maanta lala beegsaday degmada Ariixa ee gobolka Idlib ilaa 28 qof oo kale ayay hay'addu sheegtay in lagu dhaawacay duqeyntaasi qaramada midoobay ayaa jimcihii shalayto sheegtay in duqeymo cirka oo maalmahan ay Ruushka iyo dawladda Suuriya ka wadeen gobolka Idlib lagu dilay in ka badan 100 qof oo rayid ah kaliya maalmihii yaraa ee aanu ka soo gudubnay ugu dambeyntiina maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa ay u xukuntay lacag balaayiin dollar oo uu doonayo in uu darbi kaga dhiso xadka u dhaxeeya Mareykanka iyo Mexico dhismaha darbigan ayaa ahaa ballanqaadkii ugu cuslaa ee madaxweyne Donald Trump uu sameeyo xilligii ololaha doorashada uu ku jiray sanadkii 2016 xukunkan maxkamadda oo dhacay jimcihii shalay ayaa madaxweyne Trump lagu siinayaa 2.5 bilyan oo dollar oo ah lacagta waaxda difaaca oo hore ay u xayirtay maxkamad kadib markii 20 gobol iyo kooxaha u dooda xuquuqda bii'ada ay dacwad ka gudbiyeen Trump iyagoo sheegay in xaaladii degdega ahayd ee uu ku dhawaaqay ay ahayd mid ka soo horjeeda dastuurka Mareykanka madaxweyne Trump ayaa qoraal uu boggiisa Twitter ka soo dhigay ku yiri waxay guul weyn u tahay ammaanka xuduudka iyo waliba dhaqanka sharciga laakiin afayeenka aqalka hoose ee Koongareeska Mareykanka Nancy Pelosi iyo madaxa dimuqraadiyiinta aqalka sanadka Chuck Schumer ayaa iyagu cambaareeyay go'aanka maxkamadda sare markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxaa soo diyaariyay wariyaheena Maxamuud Mascade wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena qubanaha maanta koobka International Champions Cup oo sida xiisaha badan uga soconayay maalmahan wadankan Mareykanka ayaa dabcan ciyaartii loogu doonista badnaa isla markaasina taageerayaasha dunidu ay sugayeen waxay goor dambe habeenkii xalay magaalada New York ku dhex martay kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Atletico Madrid oo ka wada dhisan magaalada Madrid ee wadanka Spain labadan kooxood ayaa waxa ay garoonka soo galiyeen xidigahoodii ay doonayeen sanadkan
inay ku soo shir tagaan kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa waxay garoonka soo gelisay ciyaaryahanka Joao Felix. ciyaaryahankan oo wadanka Boortaqiiska ay lacag kor u dhaafaysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska ay ku soo iibsatay ayay ku bilowday waxa uu dhigay wacdaro waxa uu muujiyay in ciyaaryahan Griezmann kooxda Atletico Madrid aanay tabi doonin. waa ciyaaryahan orodkiisu u dheereeyo goosmada ku wanaagsan isla markaasina darbadiisu ay ka kulushahay wax walba oo markaasi farahaagu ay ku guban lahaayeen. ciyaaryahankan haddaba Felix ayaa qaybtii hore ciyaarta kooxdiisa gool u dhaliyay asaatee kooxda Atletico Madrid habeenkii xalay xidiga ay ku dhaarato ee Diego Costa ayaa 4 gool dhaliyay. waliba waxaa xusid mudan qaybtii hore ciyaarta kooxda kubadda cagta Atletico Madrid in 5 gool iyo waxba qaybtii hore lagu mariyay. 5taasi gool 3 ka midana waxaa dhaliyay ciyaaryahan Diego Costa. markii la isu soo noqday ciyaaryahan Diego Costa gool kale ayuu dhaliyay, laakiin ma aanu dhameysan ciyaarta kadib markii ay gacanta isula tageen ciyaaryahan Daniel Carvajal, waxaana labadoodaba loo taagay calaamada guduudan oo garoonka ayaa laga saaray. Diego Simeone waxa uu 10 kubadeed u dhigay habeenkii xalay macalinka kooxda kale ee Zinedine Zidane. sidaasina 7 gool iyo 3 ayaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid habeenkii xalay laga badiyay. dhinaca iyo wadanka Japan kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa ay la kulantay xidigoodii Andreas Iniesta. kooxda Vissel Kobe ee ka dhisan wadanka Japan ayayna kulan adag wada ciyaareen kooxda kubadda cagta ee Barcelona 2 gool iyo waxba ay ku badisay. cusid mudan ciyaarta dabadeed in la shaaciyay ciyaaryahan Vermaelen oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona difaac uga ciyaarayay inuu ku biiray Iniesta iyo David Villa. xidigii hore kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyagu haatan u ciyaara kooxda Kobe ee wadankaasi Japan. ugu dambeyntiina wadanka Ingiriiska ciyaaryahanada Kolasinac iyo Mesut Ozil oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa ka badbaaday weerar ay ku soo qaadeen koox burcada oo ku hubeysnaa madiyo. waxaana la arkayay in ciyaaryahan Kolasinac uu dhexda u xirtay inuu difaaco saaxiibkiisa Mesut Ozil oo isagu ahaa ninka la doonayay in saacad uu watay oo dheeman ka samaysnayd laga furto. laakiin labadan ciyaaryahan waxa ay muddo kooban dabadeed u suura gashay in ay ka badbaadaan isla markaasina waxa kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay shaacisay in ciyaaryahanadu haatan ay bad qabaan isla markaasina maalinta barita kulan ay kooxda kubadda cagta ee Arsenal garoonka Emirates kula ciyaarayso kooxda Lyon ay xidigahaasi garoonka kooxdeeda u soo gali doonaan. sidoo kale xiriirka kubadda cagta ee wadanka Ingiriiskuna waxa ay shaaciyeen in aanay muhiim ahayn in xidigaha wadanka Ingiriiska haddii weerar lagu soo qaado sida Ozil iyo Kolasinac aanay geesinimo muujin sida uu ciyaaryahan Kolasinac muujiyay, taasi oo keeni karta in ay naftooda ku waayaan. sidoo kale waxay bogaadiyeen labada xidig inay bad qabaan isla markaasina ay ka badbaadeen budcadii soo weerartay. daawadayaal xubinta ciyaar waa naga taatane kulan dambe oo mascado idila sida iyo nabad galiyo. daawadayaal intaa waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka iyagii qubanaha maanta. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.